dawadayaal jimca kariim iyo Ramadan kariim in ku soo dhawaada in waraysi gaar ah oo xiiso leh sidii in balantiinu ahayd in habeenkii xalay tolaani qaaday waraysigan gaarka ah xiisaha leh waxa uu yahay in waraysi xambaarsan xaqiiq iyo xuquuqnimo in baraha bulshadu in maxaa cusub baraha bulshadu waa badweyn ku kulmaan dhammaan in dhacdooyinka caalamka iyo hadalhaynta in wararka in been abuurka haddaba maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa soo baxayay warar la xiriira in fanaanka caanka ee reer Djibouti in Cawaale Aadan Deheye in Cawaale Casri waa fanaan laga xiiseeyo dhammaan in geyiga Soomaaliyeed haddaba waxa isweydiin mudan in maxaa ka jira in hadalhaynta la xiriira xaaladda fanaankaasi in reer Djibouti oo shakhsiyaad qaar ay sheegeen in uu ku xidhan yahay dalka jamhuuriyadda Djibouti maxay uga dan leeyihiin maxay ka qabtaa diinta islaamku faafinta war aanad hubin xaqiiqdiisa inaan ka hordhicin qodobkaasi oo dhan in waraysiga caawa ee gaarka waxaa marti igu ah oo hortiina aan keenaya oo ila fadhiya in Cawaale Aadan Deheye in Cawaale Casri marka hore in Cawaale Ramadan Kariim Ramadan Kariim Hussein waa maanta boqolkiiba waxa la yahay Ramadan Kariim dhammaan ummadda muslimka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Djibouti waxaan leeyahay insha Allah ta'ala Ramadan kan Ilaahay ana sii barakadiisa وانا كاغا مهدلين واتاي عوالي سؤاشا اللي سويدينيو سومالي او ادل iyo Djibouti oo idil in Cawaale in محربا مسوا la xiray maxaad uga jawaabtaa madda horta Hussein oo intaan su'aasha ka jawaabo waxaan leeyahay horta waa bariya Ramadan waxa qurux badan horta bilaadan waxay san hubin inaan ka sheekeyn aanu nin wadankiisa jooga banahay beledku ku dhashay waliba uu ka yahay ilaahay baba qoray boqor ka yahay oo daqsi uu dul mari karin ma ka ahay wax bara oon ogahay ma jiro haddii de wax tabanayana de nin iga cod dheer ma jiri ana sheegin lahayd wax de wax ma jiraan wax umada loo wareerinayo family-ga loo kicinay asxaabti loo kicinay umada loo wareerinayo de anigu waxaan u arkay waxaan i dhaafsano rag de madaxweynaha wadanka الحاج اسماعيل عمر قال لي اسكا ماغي waxay ku maagaan garan waay sax ma noo arkay waxaan oran lahaa walaalaha yunika ma garanaysaay aabaha qaranka waa nin waxa la yiraahdaa on public hadii aad iska maagaysan waa nin on public iska maaga laakiin aniga magacayga ku maagtaan raali kami waxaan raali uga ahayn ninka aniga sharaf buu agteeda ka leeyahay wadanka dhan agtiisa sharaf buu ka leeyahay aniga si gaar ahaan ومدحوينهيجي أكتر الشرف قيمة يقايد لي واضح من الجعلي مقعي إن لقوم معه لقوم أسكا جايو رالي كمي داود يلا أنت أنا جاي سؤال شكله ولا واحد جعل هاي إن أن داوسية مقال كوبن إن درين كهجان كقارن كم كقبا إن عوالي أدن سلو شيء عوالي روح أمريكا إيجي دونا إن درين كمدحوينه وكبح يهوري إن عوالي أدن أو هو القصة سلطان قرن مد جيبوتي عوالي لما إنه بيسوونه كنا دقاتيه هذا يروح نقضي عالمي لو راح كحده وحجيه يعني عيال يروحوا كقيم قال يا يسوي ملسر هيرسر انا وانا waxaan ku farxayna markaan aragno isagii oo يعني ummada kale ay leeyihiin war ninkani waa fanaan caalami ah marka ay leeyihiin waskay bararna anaguna markaas in Cawaale dhawaan Djibouti waxa laga soo gudbay in olole qaran oo reer Djibouti oo idil ay isu garab taagayeen taageerada madaxweynaha Djibouti Cawaale har markaan u yimaado adiga halkee ka jirtay ololahaas horta Hussein ololuhu dadku si qaldan bay fahmeen ololuhu 14 cisho ma ahayn sax waxa la dooranayo waa madaxweynaha qaranka waa madaxweyne dadkiisu jecel yihiin waa madaxweyne macnaha ololihiisu waa olole ka weyn macnaha in 14 cisho Ismaaciil Cumar ka weyn sax waxaan ka soo shaqeynay waxaan in muddo ah dadkii ka soo shaqeeyay ee ka ahaa akteerada ugu waaweyn inaan kamid ahaana waa marag madoon marka waxa 14 cisho oo wali 14 cisho laftirkeedana aan waliba anu tajoora markii madaxweynuhu furay waan ka tumay ubakh waan ka tumay sax maalintii ubakh ayaan xanuustay waan bukooday waa sax ka bacdi xanuunkii waan jeclaa xirkubada inaan soo kaco laakiin soo kici kari waay sax artayaan dirqi yalla ku soo kacay xabad heesa ka qaaday
waan soo noqday ilaahay baa igu ogolay aad baan sakarad waa waan laakiin waxa ahayd horseedkii dib baan dhahaa u baxay oo de intaad iska soo caafimaadayso maadaama fanaaniinta joogaan maadaama de maanta intaan aad soo shaqaysay adigana de naftaadii igala nasiibeed iga ahayd xoogna wallahi waan u sakaray laakiin ololaan 2 sanadood oo wadanka joogay ka soo shaqaynayay bay ahayd oo kaalin mugle oo marag madoon ah aan ka qaatay bay waxa de maanta de la boonbooniyo ma ahaani madaxweynuhu de inta iyo in ka badanba waa waajib isaaran igu leeyahay واجب سارنو عد نبدا يدري ما انا ازدريو صح انا ازدريو لان دلكيسي جوجنا عد با ku haleyni yaan ahay madaxweynaha dalkana inaan deed hil iyo hoob la garab joogo isagna waa og yahay anna waan og yahay ilaahayna og dawada waxaan jeclahay Cawaale waxa uu yiri horseed baan ka ahaa ololihii madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle bal haddaan dib isku xasuusino taariikhda cidda marabku kaga jira Cawaale in ololaha ka qayb galay kale waxaan jeclahay balnaas dul taago dhawaqii ugu horeeyay dhalinta Cawaale halkii ka taagnaa 17kii December waa markii ugu horeysay dhalinta reer Djibouti uu ka yimiday hanka xil gudoonka madaxweynaha Djibouti ama ya dhamaan dhalinyaradii wadankeena waa inoo bari galab insha Allah taala iyo xirada kubadda fanaaniintii dalkoo cidi ka maqneen iyo dhalintii dalkoo cidi ka maqneen waa inooya Ustaad Xasan watay in Cawaale in been waa been wixii runna waa run in waxaan joognaa bir Ramadan oo mudan xurmo dadka warka aynkaas baraha bulshada soo galiyay waxa ka sii daran inta qof ay sii share gareysay inta qof ay sii commentisay caawada hor fadhida oo habeen jimcaha maxaad ku leedahay dadka warka faafiyay waxaan u dhilahaa horta family badan oo familygayga ka naxiyeen asxaab badan bay ka naxiyeen dad badan oo fankayga jecel oo daafaha dunida kala jooga ay ka naxiyeen waxaan u dhilahaa horta laba shay family badan oo familygayga ka naxiyeen asxaab badan bay ka naxiyeen dad badan oo fankayga jecel oo daafaha dunida kala jooga ay ka naxiyeen waxaan u dhilahaa horta laba shay waa midda koowaad waxaan la war bishan ka xishooda bisha ilaahayna abuurayna ka xishooda naftiinana ka xishooda inagu isqadariye maadaama oo soo badheedheen idinku kamarad soo fadhiisataan oo warka keentaan oo hubin qofku ku suxufiya waxa soo hubiyo waxuna hubin inuu la imaado waa laga qurxbaday kol hadiiba waxa aad la timid maanta waxaan kaaga fadhiyaa raaligelinteedana la timaado waayo credibility-gaaga iyo sumcadaada ayay ka mid tahay wixii aad ku gafto inaad raali gelin bixin karto ka warkaas inuu beenaha ummadda u sheega ummadda beenta u sheegteen inigu dib u hadla raali gelinteedina bixiya waayo aniguna fanaankiini baan oo idin kama munni sax bariyaha ramadaan nabi saxadiisaan wala xidhay iyo la burburiyay wala dilay maxay waxaad ka helaysaan diijirindii madaxweynaha dalkuna idin kama mudna oo de waxlii waxa ma garanaysaa lagu eriyadaba oo de xumaana oo maanta laga sheegan karo personal mo de ma jiro waxa weeye ninka xilka haya inuu ilaahay ku asturo in loogu duceeyo Xuseeno u beed ku qurxoon tahay in maalinba cali buu xidhay farax buu xidhay Cusmaan buu xidhay beena la daba carro waa laga qurxoon waatay ka si daran markaad maalin been sheegtid maalin kale been sheegtid maalin saddexaad been sheegtid ee wixii laga bogto inuu beenaha oo xaqiiqda la soo bandhigo waxaan garanayn qofkaasi maalinta farad wuxuu soo bandhigi doono dadweynaha u diinaya su'aasha ugu dambaysa ee jecelahay in Cawaale aadan inaan weydiiyo waa laga soo gudbay ololihii doorasho warkii been abuurka baraha bulshada in waa laga soo gudbo caawana soo fadhino dadku daawanayaan muxuu yahay qorshahaaga Cawaale horta Xuseeno qorshahaygu marka hore sidoo ahaa oo wuxuu ahaa horta anu wadanka jamhuuriyadda Djibouti markaan Canada ka imanay anu wadankayga waan ogahay dagaal weyn baa lagu hayaa oo xagga saxaafadda ah oo xagga magaranaysa dad ilaahay magac siiyo qofka ilaahay magac u siin kara yaa magacooda u isticmaalaya wacyiga bulshada iyo in wadankeeni ku burburiya marka aniga waxa iga ahayd in wadankaygii iyo madaxweynahayga iska labstaago maanta madaxweynahaygii ilaahay ha u siyaadiyo ilaahay ha ku garab galo waana felicitaynaya waka maanta de doorashadii ku guuleystay ee maanta marar kale soo noqday hadda waxaan u jeesanayaa inaan studio hadda aan dhex fadhino ciida tuuro studio-ha man ciida tuuraya insha Allah taala fanaaniin badan igala qayb galayaan fanaan walba u furan yahay cid ay ka xidhan tahay ma jirto waliba waxaan rabnaa inaan geeska Afrika ka dhigno oo dhammaan garanaysaa intan Horn Africa
inaan ka dhigno ma garanaysaa waxa leeyahay wixii fanaaniin jooga ee dhalinyarada soo baxaysa in wax lala qabto u baahan irid u furan ay talentigooga ka soo bandhigan karaan oon waxba lagu xidhin inay ahaato aniguna aan dee wixii aan la qaban karo maadaama maanta ka experience badan ah wixii experience ahaan aan la qaban karo aan la qabto gaar ahaanna waxaan quwadda saaraya jamhuuriyadda inaan soo saarno jiil allahu mustacaan dee talent leh marka koowaad marka labaadna u baahan in dee la riixo oo kadarta laga talaalo marka wax ballanteenu waxa weeye dee tabitaankaad tabteen ee ninkii company kamanu arkin aad tirahdeen horta anigu way dhiirigelisay waxayna i siisay inaan ciidda fankaygii laygu yaqaanay aan ciidda soo bandhigo ciidda maalinta labaad ayaan soo bandhigi doonaa heeso cusub alaab cusub oo iswadata oo horena laygu yaqaanay haddana aan u joojiyey danta waddankayga ayaa ka weyn fankaygu maanta magac uma baahna laakiin hawl ii bannaanayd baan arkayey hawshii baan horta fulinayay maanta maadaama ilaahay nala qabto madaxweynahayga maanta mar kale madaxweyne yahay hawl kala ii bannaanayadna sayidii kalaan galay aad baan mahadnaqayaa cawaaladan buu hadda wadayaal waxaan filayaa caawa indhaha caafimaadka qaba iyo damiirka nool in uu meel iska dhigi doono arrintii hadalhaynta baraha bulshada ee cawaale waxaan iga xasuusta saxaafaddu waa lafdhabar waxay siisaa bulshada war sugan oo saxar lahayn haddii si xun loo turjumo xaqiiqda laga sandaho soomaalidu waxay tidhaahdaa si xun wax u sheeg sixir ka daran nabadgelyo iyo amaan allah